السلام عليكم قوم walba wax loo soo diray nabi soo hanuuniyo una ka saaro jahliga iyo waxa markaa ku sugan yihiin hadaba waxaan isla eegi doonaa qoomkii ugu akhlaaqda xumaa ee nabi loo soo diro waana qoomkii Luud ibn Haran ibn Azar waxa uu ku dhashay waqooyiga Baabil ee magaalada Ciraaq isagoo yar ayuu waalidkii dhintay waxaana ka faala qaaday awowgii Azar waxaana ay meel ku wada noolaayeen adeerkii Ibraahim nabi Ibraahimna waxa uu aaday xagga iyo Falastiin nabi Luudna waxa loo diray meel la dhaho Sodom iyo Amora sidii ahlu kitaabku xusayaan hadaba Sodom waxa u dhowdahay Baxrul Mayit meel la dhaho waxaana digi jiray laba heer oo aad iyo aad isugu milaa labada heerna waxay ahaayeen laba heer oo akhlaaq daran waxaana ay yaqaaneen dhaqan xumada oo meel kasta ay ku sameyn jireen xitaa wadooyinka qofka ay ku sameyn jireen isagoo maraya ilaahayna waa u nimcay wadankooda oo wax kasto cagaaran iyo geed kasto cagaaranba waa uga beeray oo nimcay ku jireen markay arkaan qofka cusub wadankooda ama magaaladooda way khasbi jireen oo ku sameeyay qoom luudnimo oo dilaya ilaa uu ka ogolaanayo hadaba nabi Luud gabadhiis waxay ahayd kaafirad ilaahay ka fogaatay oo nimankan qoom luudka markii qof soo hoydo ama heerka qof soo hoydo way ugu yeeri jirtay iyadoo leh warkaale rag baan idin hayaaye dibadda sidaas ayaa martida lagu bacdhabin jiray ilaa anaga wax aragnay waxaan la arkay marti la xumeeyo waxaan arki jirnay waqtigii hore marti la wanaajiyo oo neef loo qaale nabi Luud gabadhiis waxa ay la safatay qoryahan qoom luudnimada yaqaan ee khaniisiinta qoomkiisi kamay raacin labadiisii gabdhood iyo dhowr qof mooyaane dabadna nabi Luud waxa uu taagtay gacmaha isagoo leh ilaahay oo kooniga ma ogid ilaahay oo kooniga soo furo habeenada kamid waxa uu soo hoyday nabi Luud laba nin oo suurad bil aadan leh dabadna gabadhii nabi Luud ayaa waxay u yeedhay raggii qoom luudka ahaa nimanka say u faraxumeeyaan nimankii qoom luudka ahaa waa labadii nin u yimi dabadna nabi Luud ayaa ooyay oo sidii waa ku martidii ku dul ceebeeyay nabi Luudna waxa uu isri waata nimankii lagu ag faraxumeeyay ee martidii lagu xumeeyay dabadna nabi Luud waa uu ooyay malaa'igtina waxa ku tiri nabi Luud oo iska daa anagu malaa'ig baanu nahay kuwana anaga meel ka saarayne waxaana lagu yiri markay aroorta gaadho ka diyaar garooba adiga meedka ku raacayba say sheegayso suurada Huud aayadda 28aad markay subaxii gaadheen waa la rogay inta kor loo qaaday markay samada ku soo dhawaayeen ayaa dhagaxaana dusha laga soo daayay dhulkaan lala jaray subxaanallah waa taa jawaabta xumaan falayaashu halkaas ayaana ku soo afmeerantay qolada ay kibirkoodii badnaa iyo galmadoodii bila qaabka ahaydii hadaba waqtigan dambe aynu joogno wixii waa la casri gareeyay raggii baa iskuursanaya guriga caadi ah la degaya sidii xaas ilaa kuwaas dadka meelaha ka qabsan jireen oo waa la arkayay waxaana bariyahan dambe la arkay rag lafti qaadanaya oo xaq ay dumarnimada ku biiraya maandad waxa arkay taqaariis soo dhaweynaya oo leh ku soo dhow dumarnimada walaashay waa kan waxta wajiga la qarsan maayo waraga inaad garanayso ayaa maanta ku biiraya dumarnimada waxaan leeyahay hablaha walaalahay naga raali noqda annaga meel xun marnaa barnaamijka qoom luudnimada ma aha barnaamij beelood ina soo galay ee waa barnaamij waqti hore la soo abaabulay hadeerna ina soo gaaray ama inagu soo dhaxbaxay laakiin waqti badan ayaa dhexdeena laga waday xitaa sagaashanaadkii waa ka horeeyay dad baa oran doona waqtigan ayuu bilaabmay hadduu dhexdeena ka bilaabmay diinteena muslimka ay naga xarinto wax caafimaad ama wanaag inoo leh waxa ay naga xarintaa quriya wax inoo xun caafimaadkeena iyo ciribteenaba hadaba gaarida laftirkeed ayaaba waxaan ogolayn badankeedu in yar baana waxaan abaabulaysaa intaasna waxay doonaysaa inay dhexdeena ku baabiiso diinteena inaga halowso inaga lumiso laakiin weynaan ka yeelin oo dhexdeena u xidhanaynaa rag iyo dumar ilaahay qof kasta kaalin buu siiyay oo ku sharfay aanu ugu talagalay laakiin hadduu diido kaalintiisa uu ilaahay ku sharfay cirib dambeedkiisa waxun baa la kulmi doona rag iyo dumar waxa ilaahay inoogu abuuray saynu isu dhamaystirno waa inuu isu buuxino laakiin haddii inagiin isku hoos noqono jinsigiisa kale oo ku hoos noqdo aakhirkii waan hoogaynaa xadiis nabi aanan si xadiisa hubin laakiin aanu malan inuu xasan yahay ayaa sheegaya faqtul faa'ila wal maf'ula يعني لبدا بديلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بقى روح علينا برنامج كدمان وإنه بريهن دمان واو صوت عثمان راضي برنامج كأذو بعد والسلام عليكم.